waxaa la sheegaa balse alle ayaa sida xaqiiqda ah inuu jiri waa hore boqor ka mid ah boqoradii reer Saasaan taasoo dhacda galbeedka Hindiya iyo Sandi wuxuuna ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaaleba wuxuuna dhalay laba wiil oo kan weyn la dhihi jiray boqor Shahriyaar kan yarna boqor Shahzamaan waxaa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday xanuunkiisii geerida kadib isagu wacay labadiisa wiil ee amiirada ahaa wuxuuna u sheegay in boqortooyada u kala qeybiyay oo mid goonigiisa wax uu xukumi doono oo aysan isku xadgudbin kadib markii boqorkii weynaa dhintay labadii wiil sidii ay yeeleen mid kasta boqortooyadiisa ayuu maamushay muddo markii ay ka soo wareegatay oo aysan is arkin ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee Shahriyaar oo u xiisay walaalkiisii ka yar wuxuuna u qoray fariin oo ugu sheegayo inuu u xiisay oo u imaado boqorkii yaraa waa uu ka yeelay hadalka walaalkiisa wuxuuna go'aansaday inuu u safaro maalintii dambe ayuu soo safaray boqorkii yaraa markii muddo jidka ku soo jiray ayuu wuxuu soo xasuustay inuu iska soo iloobay hadiyad qaas ahayd oo ugu talagalay walaalkiisa ka weyn sidaas darteed dib ayuu u soo noqday wuxuuna qasrigiisa ku soo noqday waqti habeen ah markuu qolkiisa soo galay ayuu wuxuu ku arkay arin argagax leh aadna ugu fajcisay wuxuu arkay xaaskiisa oo adoon sariirta la saaran yahay boqor Shahzamaan markuu arkay arintan ayuu adduunkii la madoobaaday wuxuuna is yiri hadii banaagtan falkan ku kacday adigoo aan waliba beledka toos uga bixin maxaa dhici lahaa hadii aad maalmo sii maqnaan lahayd markaas ayuu go'aansaday inuu labadood ka takhaluso asigoo kurka ka wada gooyay kadib boqorkii asigoo murugaysan ayuu iska soo baxay wuxuuna u yimid walaalkiisii iyo boqortooyadii uu ka talinayay boqor Shahriyaar aad ayuu ugu farxay imaatinka walaalkiisa ka yar si fiican ayuu u soo dhaweeyay laakiin wuxuu dareemay in walaalkiisa ka yar faraxsaneen markaas ayuu u qaatay inuu la murugaysan yahay maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisii iyo boqortooyadiisii kadib boqorkii weynaa wuxuu sameeyay wuxuu diyaariyay mowkib si ay ugaarsi iyo tamashle u aadaan asiga oo ugu dan leh walaalkiisa ka yar kaga farxiyo si uu murugta u iloobo maalintii la bixi rabay ayaa boqorkii yaraa ka cudur daartay inuu baxo kadib walaalkiisii weynaa iyo kooxdiisii kaligood ayaa ugaarsigii aadeen boqorkii yaraa asigoo qolkiisa isaga jiro aadna u murugaysan ayuu daaqada qolkiisa xigta dhinaca beerta qasriga shanqar ka dareemay markaas ayuu dhinacii soo aaday wuxuu arkay arin ka yaabisay ii haysatayna ka daran waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashihiisa uu qabay boqorka weynaa oo adoon gacanta haysato iyo 20 jaariyadood oo mid kasta adoon gacanta ku haysato halkii ayaa tumasho la galay markaas ayuu boqorkii yaraa ee Shahzamaan isiri wala dhibka ku haysto waxa ka daran kan walaalka maanta haysto wuxuuna go'aansaday inuu iska iloobo murugtii haysatay caadina iska noqday markuu soo laabtay boqor Shahriyaar wuxuu dareemay isbedelka ka muuqda walaalkiisa boqor Shahzamaan wuxuuna go'aansaday inuu weydiiyo markii dambe ayuu weydiiyay wuxuuna ku yiri walaalow halkan markaad iimaanaysay waxa ka muuqatay murug iyo tiiraanyo laakiin hadda caadi ayaa tahay ee waxaad ii sheegtaa waxa murugta ka keenay iyo waxa murugta ka qaadayba wuxuu ku jawaabay boqorkii yaraa waan ku sheegayaa waxa murugta iga keenay laakiin kuma sheegayo waxa murugta iga qaaday markaas ayaa boqorkii weynaa yiri waayahay bal ii sheeg waxa murugta ku keenay markaas ayuu uga sheekeeyay arintii uu kala kulmay xaaskiisa iyo adoonkii ay sariirta la saarnayba markaas ayuu boqor Shahriyaar yiri ilaa waa inaad ii sheegtaa waxa kurbada saas u weyn ka qaaday markuu ku adkeeyay ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay boqorkii weynaa wuu rumaysan waayay markaas ayaa walaalkiisa ka yaraa ku yiri hadaad beentay u maleynayso dadka isugu wac oo ku dalxiis iyo ugaarsi ayaan aadaynaa markii la baxana inta soo dhuumato qolkayga soo gal boqor Shahriyaar sidii ayuu sameeyay kadibna maxaa dhacay wuxuu arkay xaaskiisii iyo adoonkii iyo wixii